waxaan idin cadaynayaa in waddanka Soomaaliya uu yahay waddan xor ah nabdoon isla markaana dimuqraadi ah waa waddan deeqa oo inagu filan waa waddan dadkiisu gacmahooda ku dhisteen waa waddan ay dadkiisu ilaashanayaan waa waddan ay dunidu ixtiraamto walaalayaal waddan kasta oo wax ka dhiga dadkiisa waxaa horumarkaasiiyo ummadiisa wuxuu taabakal iyo horumar ku tallaabsadaa marka uu codkiisu meel isu wada jeesto iskuna duubnaado iskuna midoobaan qarannimadooda u midoobaan horumarka dalku waa halbaylaha koowaad ee miisanayno waad ogtihiin halka dhaqaalaheena waddanka uu marayay waanad ka waraysaan halka aynu gaadhsiinay balse weli fare kama qodna weli waxaanu u faydanahay sida aynu dhaqaalaheenu u gaari lahaa meel halkaa kasii fiican waxaan garwaaqsanay baahida jirta iyo heerka ay nolosha bulshadu marayso iyo duruufaha kala duwan ee aynu ku nool yihiin dadkeenu waxaanu garowsanay oo ognahay xilka iyo mas-uuliyadda iga saaran cidna igama jecla in ay gaaraan nolol aada u fiican waxbarasho caafimaad cunto iyo biyo ku filan waxaase ka xumahay in dadka iyagu maanta dayacan yihiin ay dayaceen xoolihii degaankii iyo weliba beerihii sidii baynu sidee baynu ku horumaraynaa haddaynaan ku tabcin dhulkeenna haddaynaan u safrin oo u diidiin dalkeenna walaalayaal dunida maanta waxaynu isu furannay oo wufuud badan iyo dalxiisayaal kala duwan ay maalin walba inoo soo booqda Somaliland waxay tiraahdaa bugaagu wuu kula marti tagaa waxaanu dib u habeyn iyo dhismayaal cusub oo bilicda ku sameynay xafiisyada wasaaradda dawladda oo badankooda waxaanu ka bilownay caasimadda waddooyin casri ah si aynu ula tartanno caasimadaha dalalka jaarka ah iyo kuwa dunida insha allahu gobolladana waanu gaadsiin doonaa waxaanu dardargelinay dhismaha waddooyinka laamiga ah ee magaalooyinka isku xidha waxaanu idinku baaqayaa inaad gacan ka geysataan oo aydaan waxba kala hadhin mashaariicdaas kala duwan ee aynu ku tallaabsanay fulintooda beesha caalamku waxaan leenahay dadka iyagu waxay u tashadeen aayahooda dadka iyagu waxay la soo noqotay dalka iyagu wuxuu la soo noqday madax banaanidiisii iyo qarannimadiisii Somaliland waa xaqiiqo jirta sax iyo xaqtoona maaha in beesha caalamku iska indha tirto ama iska dhaga tirto xaqiiqda aan humaaga lahayn bulshada Somaliland waxay xaq u leedahay self determination sida bulshada caalamku intiisa kale dalkan maaha waxa la gashay wuxuu leeyahay taariikh wuxuu dadkiisa u soo galeen halkan dheer dadaalkaas way ku hantiyeen gobonnimadii 1960 gubaysihii dalkoodana kaga kiciyey gacmahooda iyagoo rabbigood la kaashanaya midnimada maanta la hadal hayo dadkana horseed u ahaa iyadoo ay niyad wanaag iyo walaalnimo qalbigooda ka buuxdo nasiib daro maalintii la israacay 5 maalmood dabadeed midnimadii waa lagu hungoobay waxayna ahayd 5 Juulaay markii Ismaaciil Samatar Gandhi khudbaduu ka jeediyey daboolka kaga qaaday xaqiiqda jirtay inay ahayd israaci aanu u dhicin sidii laga filayay midnimadiina lagu hungoobay waxay ahayd dacda aan la dafiri karin in dastuurkii la isku raaci lahaa ee Soomaaliya ku midoobi lahaayeen
dadkii reer Soomaaliland ay boqolkiiba 90 ugu codeeyeen maya no iyagoo diidmo ayaxaan kala hor yimid balse nasiib darro dagaal laga furastay taasi waxay dhaxalsiisay inqilaabkii dhalinyarada saraakiisha ahaa ee reer Soomaaliland iyagoo xilligaas sameeyeen kaasoo banaanka soo dhigtay dabashadii iyo dareenkii reer Soomaaliland dilgirashadii ismay taagin waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta ee loo yaqaanay bakayla qalad iyo iscasilaadii wasiiradii reer Soomaaliland ee xilka ka hayay xukuumaddii Muqdisho waxaanay ahayd nasiib darro inaan la tixgelin dareenka sida imika caadada ah in Soomaaliya in dad suuqa jooga aan matirin bulshada lagu buuxsado kuraasida waxay ahayd quustii ay dadka reer Soomaaliland israaci kaga talax qabeen muddo yar kadib waxaa bilaabmay qalaalaasihii iyo afkambigii dawladdii dictatorada ahayd cid dambena tale lama weydiin waxaana laga warhayay iyada oo dadka la isku xidhxidhay laguna xasuuqay jaziira ganacsatadii qoonta laysugu dabay oo la dhigay burco malka durduro kalsheekh iyo goobo badan oo aan tiro lagu soo kori karin waxay ahayd safar xanuun badan iyo wax naxdin leh oo aan la ilaawi karin diyaaradihii Hargeysa ka kacay ee duqeynayay maatada Hargeysa ee ka barakacayeen ilaa intii ay dhaafeen xuduudda Ethiopia waxaan leeyahay madaxda bulshada Soomaaliya intisaha midnimada annaga keenay nalama khasbin shalay annaga Soomaalinimada dan moodaynay oo waana la nacsiiyey annaga bilaa shuruud iyo is-aamin ku tagnay waxaana lagu kalifay inaanu idinka aaminka baxno waxaanu soo tijaabinay midnimada kalsooni dambena naguma hadhin diyaarna uma nihin riyadii beenowday kasii Soomaaliyeed waxaa kaloo ay nagu kaliftay madax banaanida iyo qarannimada Somaliland waa laba taabtaab go-aanka bulshada ka timid bulshadu ka yimid gumcna mujaahidiintay ku dhalisay gargaarka ee bena ayay ku dhisan tahay haddaba walaalayaal midnimo hadday oo shantii Soomaaliyeed soo noqon mayso eeyaynaan walaalnimada seegin Soomaalida Jabuuti waa dawlad ilaahayna ha u barakeeyo dawladnimadooda Soomaalida Kenya dawladoodii waxaa la qabsadaan ilaahayna ha u barakeeyo Soomaalida Ethiopia dawladoodii waxaa la qabsadaan ilaahayna ha u barakeeyo Somalilandna halkeeda ha ugu barakeeyo dhammaanteedna walaalo iskaashadaa aan ahaano sida walaalaha Carbeed waxaanu dibadda u taagnay qaran dimuqraadiya oo ku dhisan axsaabta badan madax banaanida garsoorka golayaasha sharci dejinta iyo xukuumadda kaasoo ku salaysan mabaadida caalamiga ah dawrista xuquuqda aadamaha maamul wanaagga horumarka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaanu dib u dhis horumarin ku samaynay maamulka dawladnimo amniga difaaca qaranka iyo adeega bulshada inagoo ku bilownay wadamada aynu jaarka nahay waxaanu adduunyada kula dhaqannay jaar wanaag wax waraqabsi iyo inaynu faragelin ku samayn arrimaha u gaarka ah ee dalalka kale dhammaan tallaabooyinkaasi waxay dabada u xaadhayeen inaynu ka mida dhalino qadiyadda madax banaanida jamhuuriyadda Somaliland waxaynu ku tallaabsanay inaynu usoo bandhigno beesha caalamka jiritaankeena heerka aynu gaarnay iyo sida ay inaga go-an tahay hanashada madax banaanadeeda waxaynu ka badaadnay inaynan cidna uga waaban inaynu tagno kana qayb galno golo kasta oo lagaga hadlayo arrimaha Somaliland tallaabadaasna waxay inoo soo kordhisay inaynu qadiyadeenu gaadho
fagaarayaal badan oo aanay hore u gaarin inaynu qadiyadeenu noqoto mid caalamka xoogogaal intii hore ka badan u noqdo maanta inay abuurmaan dalal badan oo danaynaya gogolaha u fidiyey wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan kulamadaas ka dhashay kana soo baxay heshiisyo caalamku goobjoog ka yahay oo sumad u ah jiritaanka qaranka Somaliland inaan faragelin lagu samayn karin qarnimada Somaliland wax walbana lagu dhamaystiro wada hadal iyo wada xaajood ku dhisan nabadgelyo iyo is-ixtiraam waxaanu kasbanay saneeyayaal cusub oo maalgashi ka bilaabay dalkeena gudo iyo dibadba arrimaheenu waxay galeen marxalad cusub oo aynu ku xaqiijinayno horumarka dalkeena iyo hanashada madaxbanaanida buuxda ee aynu gaadhno geed dheer iyo geed gaabana waynu u fuuli god kasta oo ay nala gashana waynu ka saari doonaa insha allahu tacaala gabagabadii nabadgelyada midnimada ummadda iyo difaaca qarnimadu waa asaaska dowladnimada waxaan salaan ogaadin iyo mahadnaqba usoo jeedinaya ciidamada kala duwan ee had iyo habeen u taagan ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarnimada dalka waxaa taa lamid ah aan usoo jeedinaya waxgaradka madax dhaqameedka culimada dhalinyarada haweenka iyo dhammaan muwaadiniinta ku garab taagan gudashada xilkooda waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Somaliland inay isu taagaan dib u dhiska iyo horumarka dalkooda inay dhexda u xidhaan una midoobaan ka difaacidda qarannimadooda cadowga gudaha iyo dibadda waxaan ugu baaqayaa inay dhowrtaan sharaftooda gobonimadooda dhaqankooda iyo diintooda marxalad kasta oo ay ka hor timaadana ay kaga gudbaan wada jir iyo midnimo waxaan ballan qaadayaa inaan dalkayga iyo dadkayga ku hogaamiyo dariiqa horumarka dhowrista xuquuqda amniga difaaca qaranka iyo qadyatirka madax banaanida dalka waxaan eebba inooga baryayaa oo aynu ku gaadhno munaasabadan teeda kale nabadgelyo horumar ictiraaf iyo midnimo ilaahay qaranka ka dhigo mid dadkiisa ku noolaado gobonnimo barwaaqo sharaf iyo horumar mahad allaale idina waa mahadsantihiin